warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in hay'adaha ammaanku ay tuhun ballaaran ka qabaan ciddii ku lug lahayd qaraxyadii aadka u badnaa ee ka dhici jiray magaalada Muqdisho. Hay'adaha ammaanka ayaa tuhunka ugu badan la sheegay inay ka qabaan in dowladda Imaaraadka Carabtu ay door ku lahayd qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho bilihii u dambeeyay. Tuhunkan laga qabay Imaaraadka Carabtu wuxuu bilowday kadib markii xerada Gordon ee hore u deganaayeen Imaaraadka laga helay kiimikada halista ee qaraxyada waaweyn laga sameeyo imiinooyinka aadka u culus. mid ka mid ah saraakiisha ka qayb qaatay baaritaankan wuxuu sheegay in magaalada Muqdisho ay ka istaageen qaraxyadii badnaa ee ka dhici jiray tani markii Soomaaliya laga saaray diblomaasiyiinta iyo saraakiisha Imaaraadka u dhashay. wuxuu sarkaalkan intaa ku daray in saraakiisha Imaaraadka ee Muqdisho joogay ay siyaabo kala duwan ula shaqeyn jireen ururka Al-Shabaab, taasna ay caddeyn u tahay ayuu yiri in xeradaasi kiimikadii laga helay ay islahaadeen kiimikada ee Al-Shabaab qaraxyo dhowr hore uga dhacay magaalada ay ka sameeyeen. sarkaalkan ayaa sheegay in baaritaankaasi ay sameeyeen ciidamada Amisom qaybtooda qaraxyada baarta xogtan islaanshaha labada kiimikana la wadaageen hay'adaha ammaanka Soomaaliya ee baaritaanka waday. waxaad hore ula socoteen in hubkii ku jiray xerada Gordon koor intuusan Imaaraadku ka bixin xeradaasi lagu dhex fasaxay magaalada Muqdisho, taasoo caddeyn buuxda u ahayd in Imaaraadku waqtigaasi rabay in falalka amni darre ee magaaladu si laba jibaarado. waxaa sidoo kale soo baxay xogo kale oo sheegaya in lacagtii malaayiinta heeda lagu qabtay garoonka Aadan Cadde qayb ka mid ah lacagtaasi qorsho u ahaa in nabadgelyada magaalada lagu dhibaateeyo laguna fuliyo weeraro. waxaa jira halays bilihii u dambeeyay xamar ka caan baxay oo ahaa Imaaraad iyo qarax iswada raac. isku soo wada duub, xogtani waxay muujinaysaa in Imaaraadku uu adeegsanayo waddo walba uu ku burburin karo qarnimada Soomaaliya. manahan wuxuu siyaasad ahaan kaga soo horjeeda farmaajo iyo qeyre ee wuxuu kaga soo horjeedo jiritaanka qarnimada Soomaaliya. sababtoo ah Carabtu waxay og yihiin haddii Soomaali lugaheeda ku istaagto oo dekedaheeda iyo ganacsigeeda dib u shaqo bilaabaan, sidoo kale ay soo saarto kheyraadkeeda dhulkeeda dhex jiifa, inay tahay maalinta ugu dambaysa oo ay gurigooda dab ka shitaan. sidaa darteed waa inaynu fahanaa waxa socda oo aynan mucaaradnimo meel la soo istaagin. farmaajo iyo qeyre waxa lagu haysta ma aha maxaad qadar xiriirka ugu jira weydeen, ee waa in indhahooda laga arkay inay rabaan in dalkani ku soo celiyaan sharaftiisii iyo qarnimadiisii. manahan wax farxad gelinaysa arrinkaasi cadow walba oo uu dalkani leeyahay. waa xaqiiq inay jiraan qaladaad ka dhacay dawladdan intay jirtay, laakiin maaha wax indhaha laga qabsan karo wanaagii badnaa iyo horumarkii ay dawladdani samaysay intii ay jirtay. manaha inaynu ku dhagno qaladaadkii yaraa ee dawladdani ka dhacay, ee waa in sidoo kale indhaheenu arkaan wanaagga iyo horumarka ay sameynayaan. intaasi waa iga talo aan halkan uga dirayo dadka wax u mucaaraday qalad dawladda marka dhacay, qaladkaasina ka indhasaabay wax walba oo wanaag iyo horumar ah oo ay dawladdani samaysay. walaalayaal, dalku cadow badan buu leeyahay, aynu isku kaashano. fadlan muuqaalkani sii qaybiya oo asxaabtiina la wadaaga. waa saaxiibkiin Cabdirasaaq Gumeysi Diidoode leh dalkeenu cadowga ka xorooba. nabadgelyo.